xafladda qalinjibinta dufcaddii lixaad iyo furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee 2020-2028 ee laga go'day iskuulka hoose dhexe sare Cabdullaahi ibn Mubaarak ee degmada Walweena way xafladdaasi u qayb galay macallimiin waalidiin odayaalka dhaqanka maamulka iskuulka arday iyo marti sharaf shirkadiisana way bana xafladda kooreyntii ardada ka bandhigana anaashiid ku hadlo muhiimadeeda walbarashada saasato xafladdu ku hadlay macallimiinta iyo waalidiinta iyagana hambali indiri ardaydii sanadku ku qalin jibiyay iskuulka Cabdullaahi ibn Mubaarak ee degmada Walweena iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe Cabdullaahi ibn Mubaarak waxaan halkan hambali uga diraynaa dhammaan ardayda ka qalin jibisay iskuulka ibn Mubaarak sanadkan ee qaybta form 4 iyo fasalka 8aad waxaan raacnaa halkan kusoo gudbiyo kelimad gaaban oo ka hadlaysa waxqabadka taariikhda soo maray iskuulka ibn Mubaarak dugsiga hoose dhexe sare ibn Mubaarak waxa uu ka mid yahay iskuulada ka jira gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Walweena waxaa la aasaasay sanadka markay ahayd 2009 waxa uu ka mid yahay iskuulada hoose ee jamciyadda hawsha halkan ka muuqatay waxay tusinaysaa waa in qalla inay jiraan dad hawsha u tafaxaysaday oo u kacay inay barbaariyaan wax baraan ubadkooda walaalahooda wiilashooda ay wax baraan arrintaasna waa soo daraasheen sidoo ilmuhu baray wixii maada ahaa oo luqadda ugu horeyso wixii maartay diin ahaa oo tawxiidka alle iyo cibaadadiisa ugu horeeyaan inaad barteen maamulayaal iyo macallimiinta waa mahadsantihiin waxaan uga ballanqaadaynaa xadiiska waxbarashada waxbarasho fara badan ayaan haynaa dad dibadiisa ugu jiro waa la soo xiriiraysa maamulkan waa la soo solisiin doonaa masar markan waxbarasho ayaan ka haynaa iyo suudaan jaamacadaha waddankana jaamacado badan ay ka mid tahay jaamacadda jaziira iyo jaamacadda banaadir iyo jaamacadda salaam iyo jaamacadda islaamiya iyo jaamacadda abraar iyo jaamacado fara badan ayaa deeq waxbarasho aan ka haynaa marka ardayda iyo waalidiintu waxaan rajaynaynaa inay la soo xiriiraan deeqdaas waxbarashada si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa dhammaan ahal waxbarashada ee gobolka Shabeellada Hoose iyo koonfur galbeed wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare koonfur galbeed sidoo kale waxyaalaha aad loogu farxaa ka mid ahaa ardayda waagii hore imtixaanaadka form 4 waxay ku gali jireen degmada Afdooye sanadkii la soo dhaafay maamulka degmada iyo koonfur galbeed dhammaan waxay iska kaashteen arrinkaas in la xaqiijiyo waana lagu guulaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan marka ardayda waxaan leenahay insha allahu tacaala sanad dugsiyeedkan waxbarashada isbedel badan aan rabnaa xagga akhlaaqiyaadka ardayda iyo xagga waxbarashada iyo xagga tayada inaan ku samayno ka dambeyntii way xafladda hiray maamulaha guud ee iskuulka Cabdullaahi ibn Mubaarak Sheekh Abuukar Cabdullaahi Hussein way banus ardada ka dhiirigeliyay in walbarashada sii wadana maamulku wuxuu idin sheegay taariikhda iskuulku uu soo maray ilaa maanta meesha uu taagan yahay manaafacaadkaasi waxaa ka mid ah ardaydii wax ku soo baratay iskuulkan maanta inay macallimiin ka yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh waxaan kaloo rajaynaynaa inay noqdaan maamulada meesha ka taliya inay ka mid noqon doonaan biidni illaahi ilbaari sanadaha soo socda ardayda marka maanta iskuulkan loo furay hadday ahaan lahaayeen kuwa agoonta ah iyo kuwa aan agoonta ahayn Faisal Hussein warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo.